عنصري ترامها ما أنت وحوجوجي برنامج TPS Somalia قبل هامبا ولالي ونديده إنه عصبونيسيو March 17 2026 كبعدي وما أنتو دعيو وحونا يري عدل على عدي كجيكتو حلقاس دبادات إنه ودنك إساقا حاجران أو إساقا هلالان وي dad badan ayaa barnaamijka TPS Soomaaliya ku joogay September 1991 ayaa la bilaabay dagaalkii sokay Soomaaliya markuu ka dhacay madaxweynihii Bush senior madaxweynihii Bushkii weynaa ayaa Soomaalida siiyay barnaamijkan waxaa lagu ilaalinayay amniga muwaadiniinta wadamadooda dagaalka socda marka hal sanadeed biloodba waa la cusboonaysiinayay madaxweynayaashii dhan waa soo cusboonaysiin jireen xataa Trump tookadiisa hore u cusboonaysiiyay laakiin tookadan labaad dagaal qaawan ayuu Soomaalida kula jiraa wuu diiday maanta inuu cusboonaysiiyo talaada March 17 2026 ka bacdana Soomaalida waxaa loo qabtay oo heesata TPS-ka inay wadanka isaga baxaan haddii kale waa la tarxiilayaa kumanaan Soomaaliya haysato barnaamijka TPS ku caana maashi ganacsi kule waddanka 30 sano joogtay iyo ka badan reero kule caruur kule qaarkood aan anigu aqaano marka dii maanta bad news ay u tahay barnaamijkii Soomaali in loo cusboonaysiin waayay waana ogeyn inay waxaan soo socdaan Trump soo wado Soomaalida waa tuu garbage ku tilmaamay dad tuugaa ku tilmaamay waxaan gobol xaar ayay u sii ahayd hadaa TPS-ka inuu diidi doono Soomaalida u diidi doono maantana barnaamijkii ilaalinta muwaadiniinta Soomaaliyeed amnigooda ee Mareykanka ku joogaan uu ka xayuubiyay weligeeyahay wadankiina ku laabta wadankiina waa ognahay dee amni fiican oo la isku haleyn kara maaha inka dadkeeda TPS sidaas oo la socda ama dadka buuxiyay badanoo buuxiyo xataa sugayaan aqaanaa March 17 2026 waxay idin tahay maalin madow dee waxaan rajeynayaa insha Allah inuu Ilaahay farad idin furo oo wax ka qeyr qaba ama barnaamij kale aad heshaan ama wax fiican Ilaahay idin siiyo laakiin xaaladda sidii hadda u eg tahay ma qurux badno ninkaan hadda naceebka Soomaali iyo Soomaaliya iyo caan ayuu ku yahay Trump marka waa nin shar xun wuxuuna ku amray dad walba oo barnaamijkan hadduu ka dhaco kana hadda haystaan inay wadanka isaga haajiraan haddii kale ICE ayuu ku dalbanayaa oo wadanka ka haajirnays hal islaaliyo markaan la taxdo